السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوار جنرال كان انجوي على فاميلي. هذا جنرال كوكو تاهي ولا شير لايك سبسكرايب نوصل جمدال كنا فرصي وحنا وحنسوق لنا أيدي سوقيان أصحاب تقصب ويلكم قاعد فرق كسر دوار ولا ريال قلبي مارت فرق كسر دوار وحن الكلام هذا علينا كسر بيتان كنا نقول كسر بيتان ويش كنا الفانس كنا وفاميل كنا ضد الهرن اللي جوجنا دمات وكون ما ستي اللي جوجي تان كنا ولا ريال رمضان مبارك ما أنت مرك وحن إلي هاي فيديو عن ربعنا واحد الله عطوش يا رب ما أنت إيو أرمها السوشيال ميديا ما أنت كسر حن ربعنا كهذا bal sidii marka hore loo soo dhaweeyay ay dadweynaha Soomaaliyeed guurkan Catoosh ee maslaxo iyo sida looga qayb qaatay qof kasto islaam ah ku faraxsanaa qof kasto Soomaali ah ku faraxsanaa qoys muslim ah oo Soomaali ah oo dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed ee isguursaday oo social media caanka in ay macnaha isguursadaan waa wax la soo dhaweeyay wax lagu farxo dana waxa jirtay in dad badan ku xadgudbeen maxaa la yiraahdaa wiilka yar gursiga uu guursada gabadha oo ay ku sameeyeen wax la yiraahdo xaqiraad leeyahay ilaahay agtiisa dadku ay ka wada sameeyeen Soomaalidana waxba isma dheera qabiilna waxba tari maayo dadka qabiilka kulliiday dadka kale tara aad bay ugu qaldanayeen dadka Soomaaliyeed way ka dhiidhiyeen wala la garb istaagay guurkooda iyo discriminationka lagu sameeyay in laga hortago haddana waxa macnaha aad dadku ay u dhibtay in haddana la maqlo guuxan iyo maxaa la yiraahdaa waxan ka isqabsaday shalay ilaa ay xalay social media waxayna ku timid TikTok ay duubayeen maxaa la yiraahdaa Fayazona iyo maslaxo in ay ka hadlayeen gamekaas ay dheelayeen inay maslaxo ka hadashay in uu Catoosh yare ay isku dhaceen uu gacan qaaday Catoosh meeshaas markay taagan tahay Catoosh waxaan leeyahay Catoosh gabdhaha Soomaaliyeed walaalo meel kasta ay joogaan meel ay dhaqanka Soomaalida uga taalo in gabar Soomaaliyeed loo gacan qaado ama madaxa ku dhufo ama gacan ku dhufo ama maxaa la yiraahdaa feeraha ku dhufo meel alla meesha doontaba ku dhufo in wax gacan loo qaado adeer macaani waad ku qaldaneed aad ugu qaldaneed mar ah gabdhaha in gacan loo qaado gabdhaha Soomaaliyeed waan ognahay waa walaalaheen waa hooyooyinkeen waa xaasaskeen waa kuwa dhali doona Britoola gabdhaheena ah ma fiicna marka dhaqanka islaamkana kuma fiicna dhaqanka Soomaaliyeed kuma fiicna taasna waad ku qaldantay tan kaleeto aan rabo inaan ka hadalno waxay tahay in maxaa la yiraahdaa maskay tiri maslaxo dhibaato dhacday dhibaatadeena waxay ka bilaabatay wiilkayga ayuu u gacan qaaday oo dhibaateeyay ama waaba u baqay in wiilkii xataa inuu toorey geliyo yaan uga baqay inay tiraahdo walaal adeer macaani aad ugu qaldan tahay taasna leen gabadha shalay wiilka inay haysatay waad ogeyd maxaa la yiraahdaa gabadhaasu wiilkaas way sidatay ka badanaa lagu guursadaa ayagoo wataan gabdhaha Soomaaliyeed waana la soo dhaweystaa ilmuhuna waa ilmahaagi inaad dhibsatana maaha inaad dhibaataysana maaha qoyska burburkiisa inuu meeshaas ka bilowdana maba ahayn wax fiican taas adeeg kugu tahay sharaf dhac mana aha wax fiican adeer taas waa ku qaldaneed waxaan jecelahay inaad garab naqsato oo garwaaqsato inaad taas ku qaldaneed taas saddexaad raba inaan ka hadlo waxaa ka mid ah social media-yuhu ma aha maxkamad hala soo aadina waxyaabaha privacy-giina because wax privacy-giina ah waxa adinkay privacy idin tahay social media-yuhu in wax aad ka helaysaan oo maxaa la yiraahdaa oo ama tala ama tusaale ma jirto inay idin kala fogeeyaan maahe oo la idin kala macnaa furfuro oo dhibka meesha uu taagan yahay micnaha laga sii fogeeyay maahe midda marka aan rabo inaan kusoo maartay gabagabeeyo oo gunaanadkayga aan ka dhiga waxay tahay in sida maslaxa iga muuqatay iyo adigaba waxaa ii muuqatay markaan adigana aan arkay clip yar soo dhigtay oo aad ku leedahay maxaa la yiraahdaa aniga waxyaabaha privacy-ga aan ma rabo inaan banaanka soo dhigo waa sax waa kugu raacsanahay privacy-ga banaanka inaan soo dhigto ma aha gabadha laakiin iyadana waxaan ku qaraananayaa in waxa idin dhex maray meeshii ay ka aadi lahayd dadka wax ka qaban kara sida waalidkiin sida ehelkiin sida asxaabta idinku dhow sida Xasan Toob oo kaleeto oo shalay qabaqaabadiina iyo maxaa la yiraahdaa ka gugaaridda guurkiina saldhigay waxay ahayd in muxuu ahaa aad kala tashataan ayaga aad wargeysa meesha social media gabadha adeerku ay la soo aadi lahayd marka gabadha hadda sida aan ka maqlay video dambe ee ay soo dubtay saakatoole waxay tiri maxaa la yiraahdaa iyadoo Afrika doonaysa waan arkay waa ogahay waa dareemi karaa way xanaaqsan tahay dad bay way masirsaneyd dad ayada nafteed ku xadgudbay way jireen oo yiraahdeen maxaa sida nin weyn oo dhahayay maxaa la gabadha iyadoo uur leh soo gashay iyo gabar kale oo lahayd gabadhan marka hore liiday taagnaan jirtay saar way Afrika doonay oo ku xadgudbay qoyska anigu marka marnaba ba taageersanay in wiilkana lagu xadgudbo gabadhana lagu xadgudbo tala la siiyo wixii qaladana gacmaha laga qabto la celiyo waalidkooda la gaarsiiyo anigu marka waxaan ku talin lahaa
عطوش إيه مصلحة وحي هذا دعوة قاعد أنت سينات كل كيسان لكن أرنتينا أبو بندكتان وحي إذا نحمري dadka wax ka dhihi kara dadka ay ka go'do go'aanka saxda ah in macnaha arrintaas ay wax ka qabtaan tan kaleeto social media walaalayaal adinka dadka social media ku jiro waa mahadsantihiin dadka islaamka ah ogaada wax alla waxaa samaynaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala beritood waa idin kula xisaabtami doonaa haddii qoys muslim ah maxaa la yidhaahdaa kala tegiisa iyo kala fogeyntiisa aad ka shaqaysaan ilaahay subxaana wa tacaala kala xisaabtamaya markii maaragtay sheegan waxaan weligii maqli jiray maxaa la yidhahdaa haddii aad ka qayb gasho goob ama meel uu ka dhacay meher malaa'igta kasoo qayb gasho waa meel aada u wanaagsan oo in laga qayb galaahay ee aada u bannaan tahay u fiican tahay waana laga baxsadaa meelaha laisku furaaya iyo ka agdhawaashadooda marka waxaan hadalkii kusoo gabagabeynayaa waalidkii ha laga gaarsiiyo maslaxo iyo catoosh yar arrintan ha soo dhex galaano gacanta ha ka qabtaano ilmahan yaryarka ay kasoo catoosh uusa hadda waxba hadal la soo tuurin maslaxa laakiin iyo dadka ay challenge samaynayaan kale social media maslaxo adiguna waxaan ku leeyahay adeer aamus oo ka gaabso dadkan waxay rabaan inaad la googoosato oo aad maaragtay meel dheer wax isla gaarsiisaan marka adiguna waxaan ku leeyahay dhiigii kugu karin waad xanuunsataa sida aad sheegtay allah ku caafiyo arrinta waalidkaa sida aad sheegtay ka warsug waalidkana arrinta ha looga dambeeyo maxaa la yidhaha dadkan kaleeto ee ka qayb qaadanaya arrintaana waxaan dhihi lahaa walaalayaalow ka fogaada waxaad samayseen hadda waad samayseen ilaah uga toobad keena ilaah uga baqa videogeyga insha allahu tacaala taladaas iyo faahfaahintaas yar aan uga qayb qaatay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu